Asalaamu calaykum. Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadha lagu magacaabo Brenda Spencer. Gabadhani waxay ku dhalatay dalka Ameerika, khaasatan gobolka California, sanadka markuu ahaa 1962, khaasatan bisha Abriil. Gabadhani sida caadiyan waxay la nooleed waalidkeeda. Agtoodan waxaa ka dhawaa iskuul lagu magacaabo Cleveland. Haddaba sidii xaalku oo sidaasi u ahaa, maalimaha ka mid ah waxaa isfuray waalidkooda, waxayna ayada la joogta kaliya un aabaheed. aabaheedna wuxuu iska ahaa mid faqiir ah oo xaalkiisa baa sigaana u yeerin, oo macnaheega waa mid magaalka iska wareega oo ka dhacsan. Haddaba gabadhani iyo aabaheed waxay ku noolaayeen guri macnaha asiga dhan wasaq ah, oo aad isdhehaysid meeshani qof kumaba noolaba. Dhammaantii waxayna ku seexan jireen joori iyo kursi uun isku dhagan ayay ku seexan jireen. Dhammaantii gabadhani Brenda Spencer waxay jecleed sawirada, kaamaradana wax ku sawiranto. Maalimaha ka midna waxay ku guuleysatay gabadha ugu fiican ee ku dheereyso dhanka sawirada. Haddaba gabadhani haba ku fiicnaata dhanka sawirada oo ku dheereysa, laakiin dhanka waxbarashada iskuulka waa ay ku liidato dhammaantii. Weliba mid ka mid ah saaxiibadeeda wuxuu yiri gabadhani iskuulka waa ay ku dhex hurdaa. Ma fahanteen? Gabadhani iskuulka waa ay ku dhex hurdaa oo mar kasta waa lagu qayliyaa oo hurdada ka kacaya la dhahaa. Weliba wiilkaas ay isku fasalka yihiin wuxuu sheegay in gabadhani ay tahay mid badanaa dadka neceb. Dadka way la dagaalaysaa, ficil qaldan ayay ku sameynaysaa, erayadeeda ma ahan kuwa wanaagsan. Haddii aad wax ku weydiisato lacag labaadi aad u jeedid dhammaantii inay ficil gacan kuu qaado ama ay ku cayso. Dhammaantii gabadhaasi maysan ahayn mid ku fiican iskuulka, macallimiinta, maamulayaasha, dhammaan gabadhaasi waa weliba waxaa la sheegay in ardaydaas ka mid ah ay ku jiray maalimaha ka mid ah, qof ayaan dili doonaa, warbaahintana aniga ayay hadalhayn doontaa. Xaalku markuu halkaas marayo, gabadhan dhibaatooyinkeeda ay bateen, cabashadeedana ay badatay, macallimiinta iyo ardayda ay ka cabanayaan. aabaheedu wuxuu is yiri gabadhan aan wado aan geeyo meesha lagu daaweyn lahaa ee isbitaalka ayuu geeyey. qaybta maskaxda ayaa gabadhan laga baaray. waxaa la ogaaday inay ka jiran tahay maskaxda, weliba qaybta dareenka. arrinkaasna waxaa u sabab ah maalmaha ka mid ah waxay ka dhacday mooto ay saarneyd, waxayna u dhacday dhanka madaxa. dhaawacaas ayaa kasoo gaaray meesha. weliba meesha uu kasoo gaaray maaha meel caadi ah, waa qaybta dareenka sida la sheegay. haddaba sheekada markay halkaas marayso, maalimaha ka mid ah gabadhani waxaa la gaaray maalinta dhalashadeeda. aabaheedna wuxuu u soo iibiyey baaruudda wax lagu ugaarsado. dhammaantii arrinkaasi waa cajiib. waxaana iida maalin ay tiray la wareysanaya ee dhahday aniga dhammaantii habeenkaasi aabaheyga codsaday inuu ii keeno raadiyo oo kaliya, raadiyaha caadiga waa taqaana soo maahan, midkaas oo kaliya ii keen ayaan dhahay. laakiin habeenkaas wuxuu ii keenay baaruudda lagu ugaarsado. iyada way aqbashay qoriga waayna qaadatay. arrinka ugu horeeyay ee samaysan waxay ahayd in ay albaabka furto, laakiin albaabka markii furtay ee doonaysay inay ugaarsato shimbiraha duulaya, markii waxaa imaaday askarta. waxaad isweydiinaysaa yaa u sheegay askarta? waxaa u sheegay mid ka mid ah dariskooda oo naxay. waxay isdhahdeen qofkani awal ayaaba lagu sheegaya jira dhanka maskaxda, haddana qori oo baaruud ayaa lagu daray. dhammaantii askarta ayuu wacay, markiiba askarta waa ay qabteen, waxayna geeyeen xabsiga. waxaa la yiri maxaa jira qorigan, maxaa gabadhani loogu keenay? wuxuu yiri qorigan waxaa rabnay inaan ku dabaaldegno kaliya aan ku ugaarsano xayawaanada qaarkood. warheed waxaa la yiri jooji sheekada halka, sidaas maahan, gabadhani way jiran tahay, qoriganna qabso, mar kalena yaa lagu arkin banaanka la yiray. waa la iska soo fasaxay gabadhii aabaheed, qorigoodana waa lagu soo celiyey. la socdo, qoriga waxaa ku jiraan baalooto dhan 35 baalooto. sidaan horey idinku soo sheegnay, gabadhani Brenda la dhahay iskuulka aad ayay u necbeed. weliba kuma sii jirto maalinta Isniinta, sababta aad ayay u necbeed waxay ahayd maalinta weyga ugu horeysay iskuulka ay aadayaan. sababtoo anaga khamiista jimcaha ayaa fasaxnaa, sabdiga ayaadna soo maha, laakiin iyaga waxay ahayn sabdiga iyo xadda fasax ay ahaayeen, waxay aadi jireen Isniinta. haddaba maalinkaasi hurdada ayay kasoo kacday, sariirteeda ayay jiiftay, hurdada ayay kasoo kacday. markiiba waxay toos u aadaysa qofka kore ee guriga. weliba waxay tagtay meesha qasnada ee uu ku jiro qoriga baaruudka ahaa ee aabaheed oo u soo gadayay. qoriga ayay soo baxsatay. markiiba guriga ayay kasoo baxday, banaanka ay imaatay. sidaan horey idinku sheegnay, gabadhani gurigooda waxaa ka agdhowaay iskuul lagu magacaabo Cleveland. iskuulka ayay markiiba agtiisa tagtay, qoriga ayay ku aadisay. markiiba waa ay ku furtay qoriga. meeshaasna waxaa ku sugnaay arday aad u badan. ardaydii badankooda dhaawac ayaa soo gaaray. macallimad meeshaas joogto oo markiiba kasoo bixisay albaabka, ayadan waxay ku dhuftay hal baalooto, sidaas ayayna ku dhimatay
macallimadaasi. Isla markiiba waxaa meesha soo ordayay mid ka mid ah ilaaliyaasha iskuulka. Asigana isla markiiba waxay ku dhufatay hal baalood oo kale. Meeshaas asigana waa uu ku dhimay. Ardaydan waxaa dhaawac ka soo gaaray 8 arday oo meeshaas ku sugneed. Askarta oo arrinkaas maqlayso soo socotay, isla markiiba mid ka mid ah askartaas oo isdhahay qabo gabadhaani. Isla markiiba asigana baaloota ay ku dhufatay, weliba waxay ku dhufatay dhanka lugta. Laakiin nasiib wanaag ninkaasi askariga waa uu badbaaday. Laakiin arrin cajiib ayaa jira. Isla markiiba askarta inta isku mashquulsanaayeen, gabadha way orday waxayna gashay gurigooda. isla markiiba waxay wacday taleefanka waxayna u wacday laba wargeys oo meeshaas caan ka ahay ama joornaal. isla markiiba waxay ku tiray dhibaato ayaa meeshaas ka dhacday, aniga ayaana ka dambeeyay. waxaa la weydiiyey sababta, waxayna tiray sababtoo ah maalintii Isniinta waan necbahay. askarta ayaa isla markiiba gurigeeda soo gaareen oo ku wareegsadeen guriga dhan. isla markiiba iyada qoriga iska tuurtay, gabadhana waa isdhiibtay si nidaam ay ku dhexan tahay. askartana waa ay qabteen waxayna geeyeen xabsiga, waxaana lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. arrinkaas oo loo sameeyey in ay dishay laba ka mid ah ilaaliyaal iyo macallimiin iskugu jiro, iyo arday aad u fara badan oo 8 arday ay meeshaasi ay ku dhaawacday. weliba xabsiga waxaa lagu siinayay daawooyin fara badan oo weliba maskaxdeeda lagu dejinayo si ay u hesho caafimaad. muddo ayaa ka soo wareegatay. gabadhii Brenda la lahaayeen waxay ku jirtay xabsiga, waxayna meeshaasi ku cunaysay daawooyinkeeda loogu talagalay si ay u hesho caafimaad dhanka maskaxda. dhammaantii ayaga waxaa u jira qaanuun cajiib ah. qofka markuu xabsiga ku raago oo la dareemo inuu qofkan isbedel yar u ka muuqdo, waa lasoo bixiyaa, waa la wareystaa. gabadhii ayaa maalmaha ka mid ah lasoo bixiyey oo la wareystay. waxaa la maxaa arrinkaas kugu gelifay maalinta? waxay keentay arrin cajiib ah oo waxay dhahday aniga dhammaantii maalinkaas waan jiranahay, daawooyin ayaan cunay oo laygu talagalin iyo dhammaantii iyo maandooriyaal aad u fara badan ayaan cunay. midaas ayaa igu kaliftay inaan arrinkaas sameeyo. laakiin markii dib loo baaray warqadaha kiiska waxaa la ogaaday arrinkaas inaysan waxba ka jirin oo ay been yihiin. isla markii waa lagu qabtay beenta. waxaa la yidhi mayme waxaas waa la laabay adi xabsigaada ku laabaa la yidhi. sababtoo haddii laga dareemi lahaa kastoo wanaag waa la soo bixin lahaa. waxaa maxkamadda ay ku xukumi lahayd in ay ku jirto guriga aysan ka bixin, ama arrimo saas camal qaanuuna sidaas camal ayaa u degsanaa adiga oo ka duwan xabsiga. haddana sanadka markuu ahaa 2001 silsiladan oo kale banaanka ayaa loo soo bixiyey oo waa la fadhiistay, wareysi ayaa laga qaaday. waxay sheegtay in waalidkeeda siiba aabeeda ay dhibaatooyin badan ay kala kulmi jirtay, oo garaaci jiray, erey qaldan uu dhihi jiray, niyadda uu ka jebin jiray. laakiin waalidkeeda ama aabeed waa u inkiray arrinkaasi, wayna iska caddeed inay doonaysa cafis oo arrinkaasi uusan waxba ka jirin. haddana Brenda 2009 ayaa haddana waxay codsatay fursad in la fasaxo ama fursad la siiyo, laakiin waa laga diido. waxaa la xabsigaada iskaga jir, oo sheekadeeda halkaas ayaa lagu soo gabagabeeyey. dhammaantii sheekadani cajiibka halkaas ayay inooga eg tahay. dhammaantii waxaan dhihi karnaa aabeeda ayaa arrinkan oo dhan u horseeday, sababtoo ah haddii uu arkay gabadhiisa inay maskaxda ka jiran tahay oo daaweyn lahay, in dhibkan oo dhan ay dhici lahay ila maahan. laakiin wayba dhacdaba arrinkaasi. iskuulkii dhacdadaas ay ka dhaceysay Brenda weeraraysana meeshaas ayaa asigana lagu xiray oo lagu soo gabagabeeyey. sheekadeena cajiibka halkan ayay ku ekeed. qisooyin xiiso leh iyo muuqaalo xiiso leh insha Allah waad daawan doontaan. fadlan channelka subscribe dheh, muuqaalkana like dheh, commentiga quruxda badanna ha iga hilmaamin oo dhiirigelinta. aad baad u mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.